الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله anigoo ah daahir ismaaciil xaaji aadan kana mid ah shaqaalaha wasaaradda warfaafinta gaar ahaana qaybta magaalada London iyo Birmingham waxa aan jecelahay halkan inaan mahad ballaaran uga soo celiyo anigoo ku hadlaya magaca shaqaalaha magaaladan dalkan Ingiriiska magacooga anoo ku hadlaya waxa aan markii ugu horeysaba mahad ballaaran soo jeedinayaa ummadda reer Somaliland meel kasta ay joogto madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed maxamed aadan sirayo iyo xaaskiisa Aamina Waris iyo madaxweynaha ku-xigeenka Saylici iyo marwadiisa golaha guurtiga iyo golaha baarlamaanka iyo guud ahaan wasaaradda agaasimayaasha guud shaqaalaha dhammaan Somaliland oo dhan si gaarana waxaan u sii salaaminaa wasiirka wasaaradda warfaafinta Boobe iyo dhammaan agaasimaha guud agaasimayaasha wasaaradda warfaafinta agaasimaha telefishinka qaranka jamhuuriyadda Somaliland iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta meel kasta oo ay joogaan haday joogaan caasimadda ayaa haday joogaan gobolada dalka oo dhan iyo guud ahaan adduunyada cirifyadeeda shaqaalaha kala jooga oo dhan runtii waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan ugu rajaynayaa ciideeda ilaahay inuu u gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo Somaliland oo markaasi gacmaha isaysata bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Xamse Maxamed Xasan waxaan deganay xaafadda Shepherdbush ee West London maanta ciida waxaan jeclahay inaan halkan ka salaamo shacbiga reer Somaliland iyo ummadda muslimiinta meel kasta joogaan ugu horeey madaxweynaha ku-xigeenka iyo wasiiradiisa golayaasha guurtida baarlamaanka deegaanka dhamaantood iyo shacbweynaha reer Somaliland dhamaantoodba aad baan salaamayaa waxaan jeclahay inaan si gaar ah u salaamo familkayga ayeeyday iyo awowgay ugu horeeyaan maxamed ciid warfaa iyo Faadimo Axmed Maxamed oo naqbo loo yaqaano iyo hooyaday loo yaqaano Sayna Maxamed Ciid aabahay Maxamed Xasan Nuur walaalahay Faadimo Faysa Firdawsa Xasan dhammaan habaryarahay abtiyaashay idooyinkay adeeraday
aad baan idin salaamay iyo asxaabteeda qaaliga ah ya aad baan idin salaamay aad baad u mahadsan tahay adiga magaca Marwan London waxa weeye shalay iyo maantaba aad bay kululeed waxaana maalinta Ciid al-Fitrigu ay ku soo beegantay maalin aad u wanaagsan oo hawaduna wanaagsan tahay qorraxduna aad u wanaagsan tahay oo ilaa shalayto dadkuba dharkiiba ay tuureen sidaa daraateed buu yarkan Marwan uu markaa u sitaa ice creamka oo kuleelka awgeed yaad salaamaysaa maamam magacayga waxa la Mursal Cabdi Xaaji Yuusuf waxaan ku noolay waddanka London waxaan dadka muslimiinta la ku laacay waanta bakhair Ciid Mubaarak gaar ahaan waxaan u salaamayaa xaaskayga iyo carruurteeda oo ku nool magaalada London iyo eheladeeda oo jooga magaalada Caynaba Burco iyo meel kasta ay ku nool wixii magacayga iyo muuqayga garanaya waxa la ku laacay waanta bakhair waka yaad salaamaysaa hooyada maamada xagee joogtaa West London West London adiguna magaca Nuux ha miyaad salaamaysaa maanta miyaad salaamaysaa hooyo abo ha xagee joogtaa hooyo xagee joogtaa gurigii waxay joogtaa waad abana abo xagaas weeyaan iskuulka ma tagtaa ha iskuulka ma tagtaa ha yeerkee batay yeerkee batay ha yeertuu ha very good adiga magaca Amar yaad jeceshahay salaantid auntie abti auntie haye iyo hooyo ha iyo abo waad mahadsantahay adiguna salaamaysaa Salaam salaam yaa mad ciidan salaamaysaa hooyaday abaxeeyo iyo abo ha ay joogaan hooyo guri joogta abana xaga u jooga waa ta ciidan soo wanaagsanaa ha aad بريقي ها كولدي كلك هني بقى رجي سكر كلك هني يا رجي سكر اوكي بسم الله الرحمن الرحيم وانيغو محمود عبد الله عيغا كنول لندن waxaan marka ugu horeysa salaamay dhamaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan mar labaad waxaan salaamay ummadda Soomaaliyeed marka kalena salaan gaar ah waxaan u diraa dhamaan ummadda reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan gobolada waxaan ilaahay dhamaantiin walaalayaal waxaan ilaahay ciid wanaagsan waxaan rajaynayaa sanadkiisana inuu ilaahay nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo ixtiraaf kaamila magaca Muuse yaa jecesha maanta ciidina salaantid ha aba jecesha salaanto ha ayeeyo ha ya awowo ha xagee joogaan Boorame waa tahay waxaan filayaa inay ku dhageysanayaan ay ku arkayaan waa tahay salaam calaykum jeceshana maanta ciidan halkan aad ka salaantid ummadda Soomaalida meel kasta ay joogaan ciid wanaagsan aan leeyahay ciid wanaagsan iyo familigayga dadka dhamaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan kaloo salaamayaa ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidda nabad iyo waxaan leeyahay bashbash barwaaqo السلام عليكم وحنا سلامة أمد الصومالية ملك استيجوان وحنا لا عيد وناكسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن دمان مسلمين تا قارهان غير سومالنا وحن لا عيد مبارك كل عام وأنتم بخير ميلا شوكتان بقى سنة كيسة وحن رجينا يعني لهاي بش يبر واقعين نقول قارسية إن شاء الله تعالى ملك استوى شوكتان نين عن نبض كوارتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii carruurtu aad bay u ciideen oo ilmo yaroo kastaba ciidda munaasabadda ciidda awgeed waxaa la socda waalidkii oo halkaasi gacantaayoo daadahinaya adiga magacaa ruwayda yaad salaamaysaa aabbo hooyo hooyo aabba salaamaysaa waa sax weeye adiguna yaad salaamaysaa hooyo aabbo ayeeyo daawada saad u aragtaan kolla waa aniga kolla waa daahir waan u nasanaynaa maanta kolba mid ayaa sheegi doona oo idin soo socodsiin doona waxaan xagan ku hayaa walaal isaguna salaantiisa xagan ka diri doona oo gaarsiin doona
walaaladii ahalkii aabbihii hooyadii ciddii ka maqnayd ee waddankii degganayd ku soo dhawo tv-ga qaranka somalilan ciid mubaarak baan ku leenahay kullu caam wa antum bikhair waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta dunida ay ka joogaan si gaar ah waxaan u salaamayaa aabahay oo maanta ku ciidnay dhul aad kala fog Axmed Maxamuud Faarax waxaan kaloo salaamayaa hooyaday oo maanta iyaduna halkan ku ciiday ma sha Allah waxaan kaloo salaamayaa ehelkay iyo qaraabaday reer Cagaagane iyo reer Maxamed Yuusuf dhammaan waxaan salaamayaa ilmaabteeday ilmaadeeraday habrowadaagtay iyo ehelkay iyo qaraabadii si gaar ah waxaan salaamayaa asxaabtayda Somaliland gaar ahaan burco ku nool waxaan si gaar ah u salaamayaa Ismaaciil Xuseen Cabdullaahi Salmaan Cabdullah Jaamac Xirsi Cabdi Maxamuud Cabdixaafid Ciise Jaamac Cabdixaafid Ciise Faarax ma sha Allah iyo dhammaan xagga hablaha Nafisa Ciise Najax dhammaan ma wada salaamayaa Hinda Zainab aad iyo aad waxaan u salaamayaa dhammaan asxaabteeda iyaguna halkan igula nool ma sha Allah waxaan halkaan ka salaamayaa madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamuud Siilaanyo iyo xukuumaddiisa waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair ku harsan waxay harsan xaafadaydi way harsan waxaan salaamayaa Ibrahim Jamaal Ayaan Sahra Maxamed Amiin abtigay dhammaan wada salaamayaa xaafadii iga herigeedaydii aan ku wadana xaafadii Jarmalka assalaamu calaykum ciid mubaarak baan ku leenahay ku soo dhawo tv-ga qaranka Somaliland yaad maanta isleedahay fursadan salaantaada codkaaga gaarsii السلام عليك marka ugu horeysa waxaan leeyahay ciid mubaarak umada islaamku meel kasto ay joogan waxaan salaamayaa kale umada reer Somaliland madaxweynaha Somaliland Maxamed Axmed Siilaanyo waalidkayga oo degan Hargeysa gaar ahaan niyo Hargeysa iyo family-gayga kale isaguna degan adeerkay walaaladay iyo ilmaadeeraday oo degan Cardiff dhammaan waxaan leeyahay waan ciid mubaarak waan idin wada salaamayaa caafimaad ku ciida meel kasto aad joogtaanba wassalaamu calaykum idinkana waan idin salaamayaa tv-ga qaranka Somaliland assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka horeysa in xarigle marka xigta waxaan salaamayaa ummadda muslimka oo dhan meel kasta ay joogaan marka labaadna waxaan salaamayaa ummadda reer Somaliland gudaha iyo dibadba wax jooga marka saddexaadna waxaan salaamayaa idinkoo tv-ga qaranka marka waxaan kaloo doonayaa halkan inaan ka faa'iideysto inaan ka salaamo faamigayga marka ugu horeysa xaaskayga Foose Khayre ciyaalkayga waana soo koobi karaynin ma sha Allah iyo aabbaha iyo hooyadooda ku nool Hargeysa oo iyagana aan u rajaynayaa caafimaad iyo barwaaqo iyo bashbash iyo ciida Ramadaan ee ciid al-Fitriga in Ilaahay ciideeda caafimaad iyo cimri dheer uu ku gaarsiiyo waxaan kaloo halka ka salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamuud Siilaanyo iyo xaaskiisa iyo madaxweyne ku-xigeenka saddexda gol qaran iyo dhammaanba ummadda reer Somaliland meel kasta joogaanba waxaan leeyahay sanadkiisa ciid wanaagsan bashbash iyo barwaaqo iyo idinkoo nabada ayaan Ilaahay idinka baryaynaa inaad ku gaadhaan waxaan idin leeyahay xariilow idinkana ciid wanaagsan aad baan kaaga gudoonay salaantaadana insha Allah way gaadhi doontaa dhammaan intaad salaantay waxaan kaloo doonayaa in halka salaamaan ka ilaaway Khadar Khayre Farxaan Khayre xaasaskooda caruurahooda dhammaantood iyaguna inta halka iga dhageysanaysa inaan salaam baan u dirayaa hawada u marinayaa waxaan kaloo salaamayaa walaalada iyo xaasaskooda iyo caruurahooda iyagana salaamayaa waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak aad baa mahadsan tahay aad baa mahadsan ciid mubaarak baan nagu ku leenahay ku soo dhawo tv-ga qaranka Somaliland oo kule ciid mubaarak yaad isleedahay xagan ka salaam maanta jaaniskan marka hore waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta meel kasta adduunka ka joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak waxa kaloo salaamaya dhammaan dadweynaha intii garanayso oo dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan kaloo salaamayaa hooyaday aabahay dhammaan family-gayga ilmadiiriyada Jaamac Qaasaali iyo ilmo Cawaale Jaamac waxaan leeyahay ciid mubaarak family oo dhan dadweynaha intii garanayso waxaan leeyahay ciideeda Ilaahay nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo inagoo isku aragna caafimaad intii garanayso oo dhan aad baan u mahadsantihiin tv-ga qaranka Somaliland inay nagala qayb qalaan ciidan baagan eelin marka aad u mahadsantaan adiguna walaal adiga mudan salaantaada insha Allah way gaadhi doontaa السلام عليكم waxaan salaamayaa muslimiinta dhamaan waxaan salaamayaa reer Somaliland dhamaan all muslimiinta
walaalahay dhammaan meel kasta ay joogaan hooyadayoo sacuudiga joogto iyo waxaan kaloon salaamayaa walaashayda Batuulo oo joogta Switzerland iyo walaalahayga dhammaan oo ku sugan Walaweyn iyo reer Sacuudi dhammaan waa salaamayaa ku soo dhawaada TV-ga qaranka Soomaaliland waxaan idin leenahay ciid mubaarak idinku xagan ka gaarsiin doona eheladiina degan wadankii salaanta iyo salaamaysan maanta kaga faa'iideysanaysan hadaad ku gooraysiyo bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa dhawaan ummadda islaamka meel kasta joogto gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Sanaag waxaan leeyahay ciid mubaarak oo kullu caam wa antum bikhair insha Allah way gaari doontaa salaantaadaasi adna walaal السلام عليكم أنا مقعد على فرح عبد العزيز لكم حق السلام يا دمان بدتك الصومالي دا إسلام كمل كستبي شوغان وحن نقول رسيني السلام تيدا أبهاي عبد العزيز حاجين بي أو من تشوغا عرقابو أنا هذا لهم حق السلام يا فاملي جيجو أدنى وشوغا هرجيس هبرو داعي هاي هبريرت وشوكت تولد على الفروق من عاد السلام يا حال الداهر عبد السيل إلى هذا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرق له آدي آد أيوة ما تني هاي قرآن بحرق له وحقول حتري سجوا باقة ضد وينها لحديث كجرا أيام مركنا ويقصور الشيء بروح نجعل هاي إن نقدر نرى أو صفي عنو صو مركز سجوا يضوا ملحت هاي مانتا مقالة لندن أو ضد كل ركي وينها كبقين أيام بنجعل هاي إن مانتا أن وديو تلفزيون كقرن كجمهورية الصوماليلاند كسروا وكده ومسنتا ولا مقعيق وحسن مع حسن maanta waxaan isku soo baahnay inaan ka ciidno magaalada London oo hadeertan awjeeda background u buuxo waxaan ka imaanay xaafada dhaadheer waxaan ku soo talagalnay inaan maaladaba tamaashaadka ciidda halkan ka dhacay inaan ka qayb qaadano waxaan jeclahay inaan salaamo hooyaday Seenab Jaamac oo Muqdisho ku nool aabahay oo London ku nool iyo walaalahay dhammaan walaalahay kale oo Muqdisho ku nool iyo gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland meel walba joogan qaasatan gobolka Awdal oo aan waqti dheer ku soo qaatay dhammaan waxa leeyahay waan salaamaya qaasatan qaasin dhammaan ardayda iskuulka ayatiin ee ku yaalo gobolka Awdal dhammaan waa wada salaamatiin qaasatan macalinkayga caatay halkan aan ka salaamaya dugsiga Camud ka war dugsiga Camud ما شاء الله جامعة عمود ما شاء الله وفيناد ولي ما تقتل ولي وان تجي لكن ما أنا دمين لكن إن صوت داودي وحوا أتجي عقد ما تنتهي daawadayaal sidaasi ayaa dadweynaha dhammaantoodba reer Somaliland ee ku tukanaya maanta baagan Ealing oo ku yaala dhinaca waqooyiga ee magaalada London ay ugu ciidayaan dadku way ka hagaagi waayeen garoonkii iyo baagii marka waxay fadhiisteen dhammaantoodba waxay fadhiyaan garoonka baaga dhexdiisa iyadoo oo shalayta iyo maanta magaalada London ay ahayd maalin aad iyo aad u kulul dadkuna runaantii aad ayay uga heleen kuleelkaasi oo qof waliba halkii uu dhar adag ka soo qaadan lahaa wuxuu ka soo qaadatay dhar aad u khafiifa caruurta ayaa iyaguna lagu ciyaarsiinaya meelo loogu talagalay oo ay ku ciyaarayaan oo maanta lagu ciidsiinayo haddaad aragto meelahanka leexooyinka oo aad runtii meelo aad iyo aad khatar u ah oo markaasi si fiican looga shaqeeyay loona adkeeyay oo dhalinyaradu ay ku ciidayaan waalidkii ayaa barbar socda dhammaantoodba oo halkaasi ay ku arkayso sida ay markaasi caruurta leexooyinka sida loogu lulayo runaantii dadka qalbiga adiga oo dhami ma eegi karaan waayo waxa weeye waa naxdin halkaasi waxaan u maleynayaa marka diyaaradaha dadka la barayo shaqaalaha in markaasi ay yihiin kuwii markaasi lagu sii tababari jiray waayo qofka halkaasi fuula wadnihiisu qaar baabana wadnihiisu aanu siin karaynin anigii horta waxaan ka mid ahay dadka aan iyagu halkaasi fuuleen marnaba haddii suurtoodaba runtii aad iyo aad banu maanta dadweynaha halkan isugu yimid runtii muslimiintu ay si weyn ugu ciideen oo ah ciidii ciidul fitriga qof kastaba waxa arinta la yaab kale waxay tahay aan ku arkay maanta baagan Ealing dhinaca waqooyiga magaalada London dad muddo 30 sanadooda aan is arag oo halkaasi markaasi laabta isu saarayay qalbi markaasi iyagoo dhabanadana iska dhukanayay salaantana iyo sheekadana balaxda hayroon ahaantii waxa weeye maalin aan la iloobi kareynin cisho ay soo soomanayeen bishii Ramadaan ee barakaysnayd oo maanta halkan hadaba farxadeedii iyo lagu dabaaldegayo dadku oo mataqaana shucuurta ka muuqataan ay tahay mid aad iyo aad u heer sareysa dadku farxadda iyo reynreynta ka muuqataan ay tahay mid aad iyo aad u heer sareysa marba marka ka dambaysa ayaa dadku ka soo badanayaan oo halkan la isugu imanaya oo qof waliba wuxuu soo qaatay cuntadiisii iyo raashinkii ugu talagalay maanta oo halkan ayaa lagu qadeynaya oo qof waliba family kastaaba wuxuu fadhiistay meel isagoo soo qaatay raashinkiisii iyo maanta qadadii halkan ku cuni lahaa runaantii telefishinka qaranka jamhuuriyadda Somaliland oo isagu aad iyo aad ugu kuurgalay habka dadweynaha ay halkan maanta yimid ay uga qayb galayaan munaasabada ciidul fitriga anigoo ah Daar Ismaaciil Xajaadan
kana mid ah shaqaalaha wasaaradda warfaafinta gaar ahaana qaybta magaalada London iyo Birmingham waxa aan jecelahay halkan inaan mahad ballaaran uga soo celiyo anigoo ku hadlaya magaca shaqaalaha magaaladan dalkan Ingiriiska magacooga anoo ku hadlaya waxa aan marka ugu horeysaba mahad ballaaran soo jeedinayaa ummadda reer Somaliland meel kasta ay joogto madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Aadan Sirayo iyo xaaskiisa Aamina Waris iyo madaxweynaha ku-xigeenka Saylici iyo marwadiisa golaha guurtiga iyo golaha baarlamaanka iyo guud ahaan wasaaradda agaasimayaasha guud shaqaalaha dhammaan Somaliland oo dhan si gaarana waxaan u sii salaaminaa wasiirka wasaaradda warfaafinta Boobe iyo dhammaan agaasimaha guud agaasimayaasha wasaaradda warfaafinta agaasimaha telefishinka qaranka jamhuuriyadda Somaliland iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta meel kasta oo ay joogaan haday joogaan caasimadda iyo haday joogaan gobolada dalka oo dhan iyo guud ahaan adduunyada cirifyadeeda shaqaalaha kala jooga oo dhan runtii waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan ugu rajaynayaa ciideeda ilaahay inuu u gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo Somaliland oo markaasi gacmaha isaysata tahay wali waxaanu ku jirnaa salaantii ciid al-fitriga oo anagoo markaasi dadweynaha kula dhex jirna telefishinka qaranka jamhuuriyadda Somaliland ku soo dhawow magacaaga iyo cidda talaamisid magacayga waxa la yiraahdaa Cabdi Furcas baa la yiraahdaa waxaan salaamayaa muxuu ahaa caruurtayda halkan joogta Safiya iyo Khayre iyo hooyadood Nimco waxaan salaamayaa hooyaday Aamina Ismaaciil Baasarca waxaan salaamayaa walaashay Hodan walaalkay Gaxnuug walaalkay Maxamed Axmed inta kullu iyo wixii dadka garanaya wajiga arkaba waan salaamayaa reer Somaliland oo dhan waa tahay Cabdi waxaad ilowday saaxiibkaaga runta Axmed Kalaas jaamaco jooga dalka Afghanistan saaxiibkay Axmed Kalaasna daahirna waa kan marka salaam saaxiib salaan kasi la beelad joogto kuma ogeeyni salaan kashi la waa la gaboobay ayaan u soo diray saaxiibka Axmed Kalaas aad baad mahadsantahay السلام عليكم وعليكم السلام يا تعشينا سنتي aabahay xaguu jooga Soomaaliya waa tahay maxaad ku oran lahayd ciid wanaagsan cid kale ma salaamaysaa ayayooyinkaygana ayayda iyo habaryaraha tahay hooyada miyaa tani waa tahay السلام عليكم iyaad adna maanta salaamaysaa ciid wanaagsan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan insha Allah waxaan u rajeynaynaa sanadkaas marka dadkeena familkeena meesha joogaan waxaan leenahay ciid wanaagsan soo dhaw telefishinka qaranka jamhuuriyadda Somaliland yaa jeceshahay ciidayna halka salaantid waxaan jecelahay reer Dunjoog oo dhan inaan salaamo kulaha ciid mubaarak abtiyaashay iyo Somaliland oo dhan iyo ummadda Soomaaliyeed iyo wixii islaam ah cid kale ma ku daraysaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa maadsantahay Saciid baa la yiraahdaa إن شاء الله تعالى وحنا كسلام يا رت دمان ومد الإسلامات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا كان مرلوات كسلام يا هويدي سهرة حاج آذن وحنا صدق الله كان كسلام يا أباهي سعيد محمد شامع يدمان ولا الله ذي أكله يا أصحاب تدعي قرنيسا وحنا لا هي كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وحنا لا هي ومد الصومالي لان يا ومد الصومالية أرنبا إلى هاي ذكو بريو عيد ونكسن يو عافماد سنة كان سنة قدام إن شاء الله تعالى إنه سكارقنا عافماد إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنجو شعب غير لندن وحان إيدا إلهي كبرينا أنا خير كوجان عيدي وسبرك الله عيدي هل كان وحان كسلام يا أمدا غير Somaliland أميل والبقوا يشوجان waxaan leeyahay bashbash barwaas khaas ahaan waxaan salaamayaa hooyada qaaliyiis fugaas oo joogta wadanka Itoobiya walaaladay meel walba ay joogaan America Canada meel walba ay joogaan wixii ehelkay wax qaraabada iyo gabadha walaashay ee Faadimo Ismaaciil Cilmi ayaan ka salaamayaa intaaba waxaan leeyahay iideeda khayr ku gaaro insha Allah inagoo meel wada joogno barwaaqays assalaamu calaykum asalaam okay ciid mubaarak yaa salaamaysaa my dad where's your dad xaguu jooga Africa, Congo. Where in Africa? Congo. Congo jooga. Ma sha Allah. Waxaad ku leedahay aabo ciid mubaarak soo dhawow. Aabo ciid mubaarak. sidaan idin sheegay daawadayaal wali fari kama qodna imikana waxaan ku soo dhaweyn doonaa Cabdi Ismaan Ducali
cabdi ku soo dhawo TV-ga qaranka Soomaaliland waxaanu ku leenahay ciid mubaarak adoo fursadan ka faa'iideysanaya maanta yaad salaamaysaa isleedahay salaantaad ha gaadho horta marka hore saaxiibka xarig leh adiga saaxiibka horta marka hore waxa kale ciid mubaarak dhammaan waxa salaamaya ummadda reer Soomaaliland meel kasta ay joogto mar labaadka waxaan salaamayaa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Shilaayo iyo marwadiisa dhammaan waxaan salaamayaa oo kale aabahay Cismaan Ducaale waxaan salaamayaa ilmaadaraday oo jooga Hargeysa walaalahay dhammaantood iyo dhammaan ummadda reer Soomaaliland iyo dhammaan reer Hargeysa السلام عليكم كسودو TV qaranka waxaan ku leenahay ciid mubaarak yaad ma isleedahay maanta xagan ka salaam oo chance kan kaga faa'iideyso waxaan ka salaamayaa inankayga oo jooga Soomaaliland Hargeysa Khalid Jaamac Maxamed Diiriye iyo walaashay Safiya Maxamuud Cabdalle annaga oo ka faa'iideysanaya jananka Soomaaliland qaranka Soomaaliland anigoo ka faa'iideysanaya maanta oo beerta lagu ciidayo caruurta oo keenay caruurtii ayeydaan oo ahaa waxaan ka salaamayaa oo kale wax la wixii garanaya magacayga iyo muuqayga way yaqaana waxaan jecelahay inay salaantaadaasi gaari doonto intii magacaaga muuqaaga taqaana annaguna waxaanu ku leenahay ciid mubaarak mar labaad ciid mubaarak kul caam wa antum bikhair TV-ga qaranka ciid mubaarak again ciid mubaarak waxaan ugu soo noqday waxaan ilaaway salaam wiil walaalkay Cabdullaahi Maxamed Ismaaciil oo jooga magaalada Jigjiga iyo xaaskiisa filsan waxaan leeyahay dhammaantiin waa idin salaamayaa inta Afrika joogta Asia Asia America gabigiina dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak horta waxaan salaamayaa baada TV-ga Soomaaliland waxaa kaloo salaamayaa hooyaday macaan Maryam Mahdi oo joogta Burukur dalka Itoobiya walaalkay Kaab Cabdirashaaq Cabdi Faysal Cabdirashaaq iyo caruurtooda dhammaan iyo walaalkay Cabdifataax Cabdirashaaq oo jooga Mareykanka iyo walaashooda Cabdirashaaq oo ku nool waddanka Suudaan iyo dhammaan reer Cabdirashaaq walaalkay Cabdi Cabdirashaaq asal jooga Ingiriiska iyo asxaabteeda dhan saaxiibkay Liban Sheer oo kanta oo ku jooga London waxaan leeyahay ciid wanaagsan ku ciidee dhalinyaradu run ahaantii aad iyo aad ayay wali u taagan yihiin goobtii salaadii saaka lagu tukaday ee ciid al-fitriga saaka waxa ahayd milixdu mid aad iyo aad u kulul laakiin imika waxa aad moodaa hadba marka ka dambaysa inay isbedelayso oo imika dhulka aad ayuu soo qaboobay waana mid aan aad ugu faraxsanahay yaad salaamaysa halkan maanta dhalinyarada aan mid ka mid aan kula kulmay adiga salaamaysa maanta ugu horeysa waxaan salaamayaa hooyaday kaa diiriye iyo walaalahay oo dhan iyo Soomaaliland inta taqaano iyo ummadda Soomaaliland dawladda Soomaaliland iyo Soomaaliya labadaba salaamaya insha Allah meel kasta duun joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ka waran dadkan maanta halkan baagan inta Soomaalida intan leeg isugu timid wala horta ma sha Allah farxad weyn waaye Soomaali badan isugu imaatay meel kasta ka imaadeen West London kaliya ma ahan meel kasta London whole London iyo gobolada nooga imaadeen aadan farxad u tahay inaan Soomaali hal mar aan chance aan soo helno kulligeen meel isugu imaanaan familada dhan ciyaalka wax kasta aan ku baashaarayna meeshaan maanta bal ka waran dad aan 30 sano sarag baagan maanta isku arkeen waa ma sha Allah taas amal ka mid ah dad badan hatta meesha London si dad badan chance la isma helo waa busy yahay chance badan la siiyo waa wax aad u fiican waa ma sha Allah aad baad maadsantahay horta magacayga Cali waay mubarak waxa maanta ku farxadii ah meesha ka soo qeybgalo Soomaalida matqan intaan oo sugu tiin baagan horta waxa waa arrin fiican ciid mubaarak waxaan salaamayaa familkiga hooyaday aabahay Axmed Nuur oo jooga Mareykanka iyo qaraabadii meel kasta adduunka ay joogaan tusbaxna sita markii lagu wardii jiray mise mid askisiyo iska caadiya fashion waa kii lagu wardin jiray maanta maalin oo iida subxaanallah mataqaan taqwadaan badinayna bakoradina waa sidataa bakoradana waa hadiyaha dhaqanka waa hadiyaha dhaqankii waa tahay markaa waxaan filayaa inaad maanta si wanaagsan u ciidiso si fiican waad mahadsan tahay weli dadkii waxay ka hagaagi laayihiin baagii saaka lagu tukaday salaadii ciida telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayuu dadka la dhax qaaday telefishinka xaas family dhan oo halkan iyagu markii ay maanta baaga yimaadeen iyagoo si fiican ugu qadeeyay meel agtayda ah ciid wanaagsan عيد ونقصن عيد ونقصن عيد ونقصن عيد ونقصن عيد ونقصن عيد ونقصن واتاي يا تعشى ما تقعدوا هلكن كذا عيده هو يا مريم يا روح كسر مسلمة أم بوركر بوركر إثيوبيا واتاي وعن فيليا إني كل جيسانيان ويكون مقليان وأنا كاجرتين دونا واتاي سيدا سيا دتكو قفوا اللي بقى الذي سووا سلامية وعن جعلها إن الميت دمان عيد ونقصنا يليه maanta waa maalin aad u farxad u leh muslimiinta dhan waxaan ku ciidaynaa baagi weynaa ilankoma waa la iskugu yimaaday dhammaan wixii muslimiintii London joogay waa ciid aad u wanaagsan aniga waxaan si khaas u salaamayaa dhammaan
goobtaan ku dhashay dadka eeladii ku noolaa oo burukur waxaan salaamayaa hooyaday maryamo mahdi walaalahay dhammaan miraaji farxiyo daabo faysal cabdifataax kaad dhammaan waan salaamayaa dhammaan reer macalin axmed wixii qaraabada dhan waan salaamayaa ciid wanaagsan ayaan leeyahay ciid wanaagsan wax roobkii oo soo daatay ma sha Allah dadku markii hore waxa dilay kuleyl imkana roobkii baa soo daatay waa mid aad loogu mahadnaqo adigu macid baa salaamaysa inta roobkuna soo gaadhin salaamaanta muslimiin oo dhan meel walba joogaan walaashay quraash marka taba joogto Sweden walaalahay jooga Soomaaliya walaashay jaalac marka taba joogto Ethiopia inta muslim oo dhan salaam alaykum aad iyo aad baad u mahadsan tahay dadku waxa dilay markii hore kuleyl imkana roob ayaa soo daatay waxaan filayaa dadku baagiiba imkana ka carar doonaan oo loo carar doono meelaha loogu talagalay in dadku roobka ay ka galaan waana mid ilaahay loogu mahadnaqo kuleylkii waana aad u mahadsan tahay xarig laayaan bal jeclahay inaan weydiiyo bal hadda markii hore dharkiiba u tuuri gaaray bal imka ka waran kuleylkii iyo qabowga imka inay roobka wallahi daahiro runtii aad bay kuleyd oo iska rafaadsanayn laakiin imika waxaad moodaa inuu roob nagu daayo laakiin imika waxaad moodaa inaanu qabowga haddana diidanahay aad iyo aad baad mahadsan tahay weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii salaamaha kulley maanta laga go'an maayo waayo dadka meesha iskugu yimid ayaa aad u badan fursad weynna waxaan u yeelanay dhammaan dadka reer Somaliland inay markay arkaan TV-ga qaranka in ay noo yimaadaan xagan waxaan ku hayaa salaamo aad u badan family isku duuban aad baan idin salaamayaa ciid mubaarak baan idin leeyahay dhammaantiin yaad isleedin kaga faa'iidaysta fursaddan maanta aad ka salaamaysan halkan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلامنا دمان أمد إسلام كمل كستو إجوكتو وحن لنا عيد مبارك كل عام وأنت بخير نقول عيد عيد الفطر يفهم الكيك دم مسلمين ترى يوم مدة مسلمين دم أودن ما شاء الله أدوكم يا سلام السلام عليكم مقعد وهاني محمد أنتم حنك السلام يا خويدي حاول حسين أو تلاني جوكتو أبهي محمد تكساس أو سويدن يجوكو دمان ولا له يا أصحابتي في سويدن إيطاليا جوجان السلام عليكم عيد مبارك دمان كل المسلمين كل عام وأنتم بخير